Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada walaalayaal. Maanta halkan walaalayaal waxaan idinku wadaa alaabtan ama productigan la yiraahdo gacmaha la gashto oo loogu talagalay dadka rheumatism-ka qaba ama dadka gacmahoodu ay xanuunayaan oo kale. Marka alaabtan magaceeda waxaa la yiraahdaa braces ama waxaa la yiraahdaa hand splint baa la yiraahdaa. Marka alaabtan runtii waa aad iyo aad bay u muhiim tahay qofku inuu isticmaalo uu helo, waayo faa'iido badan buu ka helayaa. Dadka oo gacmaha xanuunayaan oo kale aad bay ugu fiican tahay. Marka walaalayaal aad iyo aad baan idinla jeclaystay walaalahayga Soomaaliyeed meel walba joogtaan bay intii kale i daawanaysa adduunka. Maasha Allah alaabtan sideedaba alaab oo qaali ma aha. Wax walbaba xataa hadduu qaali yahay waxaa kaaga muhiimsan caafimaadkaaga, wixii wax ku taraya ayaa kaaga muhiimsan. Marka bahashani waa $29 oo iyo 99 cents oo US dollar ah. Insha Allah biidhnillah website-ka ayaana hoos idinku soo qoraya. Qofkii u baahan raba inuu dalbado halkaas ayaad ka heli doontaa insha Allah. Description box-ka oo down below meesha hoose ayaan idinku soo qori doonaa insha Allah. Marka alaabtan faa'iidadeedu maxay tahay? Faa'iidadeedu waxay tahay haddaan idin galo walaalayaal. Gacmihii qofka qof walbaba rheumatism-ka qof walbaba sibuu u galaa ama u qabtaa. Qof waxa laga yaabaa inuu si tartiib u qabto oo xanuun badan iyo jirkiisu isbedel badan uusan keenin. Qof waxa laga yaabaa inuu aad intuu xanuunkii u qabto uu bedelo qofka figurkiisii ama sidii ay gacmihiisi ahaayeen, oo taasoo keenaysa barar inuu soo dhex galo oo barar galo gacmihii oo kale, ama biyo ka galaan ama xanuunkii ka tiro bato oo inflammation badan uu gacmihii galaan. Marka sababtaas ayaa keenaysa inuu qofkii gacmihiisii ay leexleexdaan ama xanuunka awgeed. Marka qofkii markuu waxaa dareemo, of course qofkii jimicsi badan uu laga yaabo markuu caadiga ahaa uu samayn jiray ayay ka hor istaagaysa. Xanuunka tirada badan ayaa ka hor istaagaya unan gacmihii u dhaqdhaqaajin karin, uu waxba ka qabsan karin. Marka taasaa keenaysa qofkii inuu leexdo oo gacmihii ay ka leexdaan ama awoodii tirada badnayd xanuun dartiis awgeed una waxba qaadi karinin. Marka maasha Allah marka bahashani waxay kaa caawinaysaa gacmihii aadan qaadi karaynin marka si la dhex geliyo oo farihii mid walba meesheedii bay aadaysaa, mid walba meesheedii toos bay ku noqonaysaa oo wax mid kale ku darsamaya ama leexanaya ma noqonayso, oo support fiican bay ku siinaysaa. Supportigaas ayaa gacantaadii wax weyn maasha Allah caawinaya. Marka gacantiina waxaa la rabaa maadaama aad bay u fiican tahay xilliga aad seexanaysid sidoo kale inaad gashatid. Maalintii markaad meel iska fadhido kalena way fiican tahay. Qofkii maalintii oo dhan gashanaan karnaa wax dhiba ma jiro. Marka maasha Allah productigan walaalayaal ka faa'iideysta. Haddaad ogtihiin dad u baahan oo qof waayeel ah sida qofka waayeelada ayuu xanuunkani runtii aad u saameeyaa markay noqoto lafaha, because qofka yar xanuunkii wuu ku dhacayaa oo isna affectigii wuu ku sameynaya xanuunkii. Laakiin qofku markuu sii weyn yahayna maadaama uu lafihiisi daciif yihiin way uga sii daraysaa. Marka maasha Allah haddii aad u dalabtid adiga qofka loved ones-kaaga ama qofkaad jeceshahay ama ayeeyaha noqoto ama aabbaha noqoto ama walaal ha noqoto ama hooyo ha noqoto kulli maasha Allah wax fiican waa gift fiican weeye aad qofkii siinaysid una runtii ku ilaaweynin, because waad caawinaysaa wax baad rabtaa noloshiisa inaad ka bedeshid. Qofka dadka rheumatism-ka qabana waxaan aan idin leeyahay dadka qofka rheumatism-ka qaba inuunan quusanin. Meel walba waxaa jira waxyaalo badan oo aad naftaada ku caawin kartid baa jira.
just inaad right information raadisid unbaa kugu maaragtay baad u baahan tahay. Hana ka xishoonin inaad dadka kala weydiisid, because qofku markuu rheumatism qabo waxaa laga yaabaa inuu xishoodo, isagoo xanuunkii hayaa ayaa maaragtay wax ka xishoonayaa qofkii kale inuu wax kale u sheegto uu yiraahdo hebelow sidaasaa la ii hayaaye ama kan iyo kan. Marka wuxuu rabaa inuu iska ilaabo waxaas oo dhan oo xanuunkan unbuu ku fikirayaa maaragtay runtii xanuunkan tirada badan ee haya. Marka walaalayaal informationka isweydiiya, informationka qofka haddaad ugu information haysid qofka kale ha u gudbiyo, qofkaaga maaragtay ehelkaaga ama saaxiibada ama saaxiibka oo rheumatism qaba haddaad aragtidna alaabtan u sii sheeg, caawi, ajar baad ka helaysaa runtii. Dadka maaragtay runtii qofka uu la nool yahay qof rheumatism qabana isagana caawi, u dugdug gacmaha saliido u mari, bahashan u geli, runtii yacni wax la soo koobi maha, ajar weyn baad ka helaysaa, waad caawinaysaa. Qofkii waxaa laga yaabaa xanuun meel buu la fadhiyey uunan garanaynin maaragtay uu maskaxdii dhan ay buuxsantay xanuunkan sida ula tacaalay, laakiin uunan garanayn tallaabo uu qaado garan maayo. Marka haddii aad qofkaaga biyo kulul gacmaha u gelisid intaynan maaragtay aynan too late noqonin oo uuna heerkaa gaadhin qofku gacmihiisa ugu xanuunaan, marka hore waa in laga taxadaraa oo qofka gacmaha loo duugaa, biyo kulul loo dhexgeliyaa, biyo aan adab ahayn laakiin biyo iska meel dhexaado oo kale. Qofkii waa inaad saliid u marisid, u duugduugtid maasha Allah, caawi, sidoo kale lugahoo kale meeshii xanuunaysa suuna qofkii xaalad adag u gelin hadhowto oo waxba laga qaban karin. Marka maasha Allah tabaarakallah, adigiina waad ka ajarsanaysaa hadday hooyadan tahay, hadday aabbaha tahay, hadday walaalaha tahayba. Marka walaalayaal maasha Allah productigan ayaan maanta idinla qaybsanayaa. insha Allah biidnillah waxaan rajaynayaa inaad faa'iidadeeda heli doontaan. Marka waa sidaas ula socda, hoosna waan website-ka waan idinku soo qori doonaa maalin ilaawin insha Allah. Marka khayr baan idin rajaynayaa iyo caafimaad meel walbaad joogtaanba. U sii share gareeya walaalaha kalena videogan runtii faa'iido buu u yeelan doonaa insha Allah. Haddaad nagu cusub tahay walaalayaal soo dhawaada, haddii maaragtay hore aad noola joogteena idinkana commentigiina iyo sharekiina aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin walaalaha qaaligan aad ku jecelahay. Haddaad nagu cusub tahay soo dhawow, subscribe insha Allah si aad channelkan uga faa'iidaysatid. maaragtay gambalelkana double click ku samee 2 mar ku dhufo si aad fiidiyoyadu maaragtay mar walba kugu soo dhacaan. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.